Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Waxaa saacado ka hor geeriyooday wariyihii weynaa ee Sayid Cismaan Mire oo ku geeriyooday magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya. Wariyahan geeriyooday Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyay muddooyinkii dambe wareysyadiisa aad loo xiiseynayay ahaan dhinaca Somaliland. Haddaba qaabka uu geeriyooday wariye Sayid iyo xanuunka uu geeriyooday ayaan barnaamijkeena maanta ku qaada dhigi doonaa. Waxaana warbixin ka diyaariyay saaxiibkiis Dawlad Xasan Cilmi ay Horyaal TV ka wada shaqeynayeen muddo dheer. Warbixinta dhimashada wariyaha oo ku geeriyooday magaalada Addis Ababa ayaan barnaamijkeena maanta ku qaada dhigi doonaa. hayeeshee daawad intaynan barnaamijka u guda galin hadda channelkan ku cusub tahana subscribe sa asxaabtaada la wadaag ku soo dhawaada barnaamijka. Saaxiibkiis qaaliga wariyaha geeriyooday ee Sayid Cismaan Mire oo lagu magacaabo Dawlad Xasan Cilmi oo ay Horyaal TV ka wada shaqeeyeen ayaa ka warbixiyay geerida uu geeriyooday wariyihii weynaa ee aadka loo xiiseynayay wareysiyadiisa Sayid Cismaan Mire. Sayid Cismaan Mire ayaa ku geeriyooday magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya. Dawlad ayaa waxa uu yiri waan diiday inaan ICU-da ugu galo. Sayid 10 maalmood oo ku jiray ilaa uu saaka dhakhtarkii baasaa khasab igu dulgeeyay. Hadda ayaan Addis Ababa gaari kaga soo qaadnay Sayid oo meyd ah kadib markii diyaaradda aanu sugi kari weynay. Maadaama berri ay axad tahay oo howlaha dawladda nagaga xidhan aanay noo suurtagelaynin. Marnaba maan aaminsanayn in Sayid waqtigiisii dhammaaday 12 bishan Oktoobar ayaan dhignay ICU-ga Washington Hospital ee magaalada Addis Ababa. Markii aan diyaaradda Hargeysa ka soo qaadnay galabnimadii Arbacadeedii ee 12 Oktoobar aniga iyo walaashii Deeqa iyo walaalkii Jaamac waxaan u hayay oxygen-ta waxaana uu ku sigtay dhowr mar in naftu ay ka baxdo. Waxaan dareemayay cabsidii nolosha iigu weynayd taas ayaana keentay inaan ugu gelin ICU-ga waayo mu ahayn muuqaal aan xamili karayay anigu. Sayid waxaan u ooyay buu yiri oohin aanan u ooyin aabbahay Alle naxariistii jannaha uga deeqo labadaba iyo xitaa Xamse yarihii 10 jirka ku dhintay ee walaashay dhashay. Muddadii uu ICU-ga yaalay waxa aan waday 3 shaqo taasoo ah koowaad ay tahay inaan niyadooda khayr u sheego dadkii faraha badnaa ee hospitaalka nagu soo boqanayay. 2 inaan qoyska iyo asxaabta xaaladooda dajiyo aniga oo gurubyada kala hadlaya. 3 inaan raadiyo wada kasta oo caafimaad ku helayo wadanka uu doono ha noqdee. Shalay ilaa maanta waxaan joojiyay warbixintaan dadka siinayay kadib markii uu shalay dhakhtarku dareen naga geliyay. Saaka dhakhtar ee shitadu ayaa ii yeedhay oo igu khasbay inaan indhaha ka soo qaado si aan u arko xaalkiisa si xumaaday. Markii aan dul tegay waxaan ku yiri sawma noola uun adigu u qabo wixii dadaalkaaga Ilaahay kama dhigayo maalintiisa. Galabnimadii maanta waxaan u baxnay aniga iyo Jaamac Cabdirasaaq iyo Cabdiraxmaan in aanu doono diyaarad ambulance ah oo aan India ku gaarsiino. Haddii aan wax yar maqnayn ayaa telefoonkayga eedo Deeqa soo garaacday oo noo sheegtay in aanu soo cararno oo wax jiraan 10 minute wax aan gaarin ayay nagu soo celisay oo noo sheegtay in Sayid go'ay oo uu geeriyooday. Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabi. Sayid buu yiri waa la wada jeclaa waana loo wada dadaalay maalintiisii ayuu adduunka ka tegay. Aniga waxa uu yahaa buu yiri walaal waalid saaxiib iyo rafiiqa noloshayda. Cidlaynta uu cidleeyayna waxa ay bedelaysaa guud ahaanba qaab nololeedkayga. Ilaahay safarka nabad qaba ha noogu dhameeyo. Wariye Sayid ayaa lagu aasi doonaa magaalada Hargeysa caasimadda Somaliland ayuu yiri Dawlad Xasan Cilmi oo ay meel ka wada shaqeynayeen gaar ahaan telefishinka Horyaal. Wariyaha weyn ee geeriyooday Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyay Sayid Cismaan Mire. daawade aan wada ducayno in Ilaahay naxariistii janno uu ka waraabiyo.
fadlan daawada qaybta hoose commentiga ugu ducee muuqaalkana sii like garee si uu helo duco badan bulsho badan oo Soomaaliya u gaaro.